iyadoo muddooyinkii dambe ay soo baxayeen warar sheegaya in degmada Daynile uu ku yaalla xabsi dawladdu aysan ka warqabin islamarkaana lagu xiro dadka kaasi oo lagu magacaabo Cusboole ayaa maanta waxaa booqday xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir General Saadiq Cumar Xasan taliyaha qaybta galbeed ee booliiska gobolka Banaadir Yuusuf Xundube iyo gudoomiyaha degmada Daynile Maxamed Abuukar Jacfar dawladda oo wacaalka wararka sheegaya in halkaasi xabsi ay tahay kala socotay baraha bulshada ayaa waxaa maanta halkaasi booqday islamarkaana ku dhawaaqay in saldhiggaasi uu noqon doono talis booliis oo markaasi ay yeelan doonto degmada Daynile ka sheegay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Dr. Suleymaan Maxamed Maxamuud waxaana uu fariin u diray maamulada degmooyinka gobolka Banaadir isagoona hoosta ka xariiqay in maamulka degmada Daynile baaris lagu sameyn doono taasi oo ku saabsan eedeymo dhawaan loo soo jeediyay marka waxaan rabaa wixii ka dhacay oo degmada maamulkeeda lagu soo eedeeyay waa wax baaritaan ku jira oo baaritaankeeda uu socdo natiijadana baaritaankaasi ka soo baxaysa waxaan rabaa inaan halkan uga jeediyo ummadda Soomaaliyeed in meeshan ay tahay saldhiggii hore ee degmada Daynile maamulkeeda iyo saldhignimadeeduna aysan markii hore aysan shaqayn jirin laakiin maanta laga bilaabo booliiska Soomaaliyeed lagu wareejiyay oo ay ka howlgali doonaan waa meel u baahan dayactir iyo ka shaqayn fiican marka mas'uuliyadaas taliska booliiska iyo ciidamada booliiska Soomaaliyeed baa qaatay ayaga maanta laga bilaabo howlgalin doona haduu Ilaahay yiraahdo dayactirkii waxay u baahan tahayna waa loo diyaariyay marka maanta laga bilaabana wuxuu noqonayaa saldhigyada kamida oo degmadu ay leedahay ciidanka booliiska Soomaaliyeedna lagu ogyahay qofkii lagu xiray iyo sababta loo xirayna hadda kadib waxa la weydiinayaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed maamulka degmadana waxba laga weydiin doona haduu Ilaahay yiraahdo maadaama mas'uuliyadda booliiska ay ku wareegtay waxaan ugu dambeyntii u jeedinayaa dhammaan madaxda degmooyinka in ay ku dadaalaan in ay sharciga fuliyaan sharcigan u hoggaansamaan iskana ilaaliyaan qof inay si sharci darro ah xorriyadda uga qaadaan hadhowna aan la soo ogeysiinin hay-adihii ku shaqo lahaa xariga iyo xorriyadda qaadka dadka Cabdicasiis Ibrahim Axmed Oke TV Universal magaalada Muqdisho